بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا محمد وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته إن شاء الله تعالى كلمة أن عاوى قدميناي وحي كسو آذي سائيضا أو قوة كمذا حدودها الدولة ديغانك أي سوق عن سارين اسنهر فرديان لبا قيبود قيب وعيدنك سوغيد أمنيك ديغانك وعيدنك نبض إلالينتا وعيدنك بفضل الله تعالى إلهي فضلكيسا كلك لغا يمادو maanta masaajida dowlad deegaanku ay dacwada iyo duruusta uga socoto waa ciidanka bifadlillahi tacaala maanta deegaankaasi uu ku taagan yahay waa wiilasha bifadlillahi tacaala maanta hawsha ay hayaan darteed masaajida loo leeyahay ashhadu an laa ilaaha ila allah wa ashhadu anna muxamadan rasuulullah xaya cala asalaati xaya cala alfalaax waayo haddii qalalaasa jiro oy xabada afarta koona ka dhacayaan ninka adimayay ma oran karo xaya cala salaati xaya cala alfalaax sidaa darteed waxaanu leenahay waa ciidanka bifadlillahi tacaala maanta masaajidu ay ku taagan yihiin amniga iyaga ilaahay u waafajiyey waa wiilasha maanta bifadlillahi tacaala ay hooyada caruurteeda korsanaysan ay u shaqaysanayso wiilka jaamacadda aadayay uu wax u baranhayo dadka mas-uuliyiinta ah iyo shacabka iyo hoggaan dhaqameed iyo xildhibaan iyo ummadda duuduub ahaanba ay ku seexdaan weeyaan kuwaasoo dhinac ah oo lagu soo duulay waxaa ku soo duulay niman argagixiso ah khawaarijna labada erayna waanu sharxaynaa insha allahu tacaala waxaan leenahay waa argagixiso oo waxay argagax geliyaan ummad tidhaahda laa ilaaha ila allahu muxamedun rasuulullah waxay argagax geliyaan oy si aan kala had lahayn ay u xasuuqaan ummad magacyadoodu yihiin maxamed iyo bashiir iyo jaamac iyo wax la mid ah khadiijo iyo faatimo iyo caaisha wax la mid ah waxay argagax geliyaan oo si aan kala had lahayn ay u xasuuqaan una xasuuqeen una qixiyeen ummad shanta waqti dhagahooda ay ku dhacdo xaya cala asalaa xaya cala alfalaax oo masaajida u dareeri jiray maantana fajar iyo cishe salaadihii ugu fadliga badnaa aan ku tukan karin masaajida waxay argagax geliyaan ummadda inta fikirkooda aan ku raacin waa khawaarij baan leenahay waayo waxay aaminsan yihiin ummadda soomaaliyeed khaas ahaan muslimiinta guud ahaan wixii aan iyaga la fikir ahayn een baadilka ku raacsanayn inay gaalo yihiin gaalnimadaasina ay ka ratibmayso dhiigooda inuu u bannaan yahay hantidoodu u bannaan tahay waa niman fikirkoodu u laba meelood salka ku haya kow ummadda in la gaalaysiiyo waxaan la fikirka ahayn labo kolka la gaalaysiiyo dhiigooda in la xalaashado waa ummad ku abtirsata nimankii dilay cali ibni abi aalib asadullahi alghaalib radia allahu canhu wa ardaah ninbaa cali bin abi aalib dilay isagoo ilaahay ugu dhowaanaya nimankaasay salka ku hayaan waxaan leenahay waa khawaarij maxaa yeelay aqlabiyadda ummadda soomaaliyeed waxaan iyaga la fikirka ahayn way laayaan ma ku xisaabsan yihiin inta caalim inta sheekh inta daaci ee soomaaliyeed ee dadkii maanta dacwada diinta islaamka ummadda soomaaliyeed u xambaarsanaa ah camalka dacwada dadkii indhaha u ahaa ah ee baadilkooda farta ku fiiqay ay ka dhigeen mid isagoo salaad ku jira waa sheekh cabdiqaadir gacmi allahu naxariisto oo yiri samica allahu liman xamida salaad casir maalin jimca masaajidka dhexdii beytka ilaahay dilay iyagoo la ilaahan ugu dhowaanaynaa mala socotaa sheekh cabdinaasir allahu naxariisto in gaari ay ku ololiyeen isagoo caalim soomaaliyeed doctor axmed iyo raggii lamidka ahaa iyagoo salaada subax ka baxay oo adkaartii fajarka afka ku haya allahuma inni calaa dikrika wa shukrika wa xusni cibaadatika leh dilay iyagoo la ilaahay baan ugu dhowaanaynaa waa khawaarij waxaan leenahay waa khawaarij waayo ma ku xisaabsan yihiin waxa arday ah ee soomaaliyeed ay qarxiyeen boqolaal qalin jabinaysay boqolaal ubixii ummadda soomaaliyeed ahaa oo scholarshipyo loo waday baa waxa keliya laga arkay waxay noqotay laf madow oo qiiqaysa oo khawaarij ilaahay baanan ugu dhowaanaynaa inaan khawaarij nidhaahno maxaa yeelay khawaarijnimadu wax loo dhasho maa waa camal lala yimaado camalkaana waa kulansadeen
nimankaasoo dhinaca iyo ciidamada aan ka sheekeeyo dhinaca yaa isku gacan saaraya. waxaan leenahay waa niman aanay u kala duwanayn kanaa mucaarada iyo kanaa muxaafida. sidaa darteed qadiyadani mid la siyaasadeeyo iyo mid xisbi loo aaneeyo ama shaksi ama beel ama xildhibaan hebel ma aha. maxaa yeelay adiga siyaasadaynayana murtad bay ku yaqaanaan, kan aad siyaasadaynaysana murtad bay u yaqaanaan. waa qadiyad caamo wey. sidaa darteed waxaan ugu baaqaynaa ummadda Soomaaliyeed ee gobolka ku nool ee intii muddo ahayd runtii la tacaalaysay dibindaabyo iyo dhibaatooyin fara badan ilaa iyo haddana meeshii u socotay aan weli gaadhin, ummad abka ab raadinaysay amni inay hesho, in si aan kala hadh lahayn nimankaa meel looga soo wada jeesto, in ciidankaa Soomaaliyeed ee nimankaa deegaanka ka hortaagan bifadlillaahi tacaala hiil iyo hoo lala garab taagnaado. haddii nimankaa ay deegaanka soo galaan, masaajid ma taagnaanayo, jaamacadi ma taagnaanayso, iskuul ma taagnaanayo. mas-uuliyiintan maanta jooga say dooniba ha u tabardaraadaane waxay qaban karaan ma jirto. hoggaan dhaqameedka maanta noo jooga iyo cuqaasha joogta iyo dalladda aqoonyahanka iyo ardayda iyo baarlaman iyo cid taagnaan kartaa ma jirto. markhaatina uma baahna taasoo dee waanu aragnaa jamhuuriyadda Soomaaliyeed iyo maamuladan ummadda Soomaaliyeed samaysatay waxa ay ka sameeyeen. waan ogeyn Muqdisho waxaan aragnay kolkay ka sameeyeen, ee Kismaayo ka sameeyeen, ee Boosaaso ka sameeyeen, ee Hargeysa ka sameeyeen, ee Djibouti ka sameeyeen, ee Nairobi ka sameeyeen, ee Mombasa ka sameeyeen, ee Uganda ay ka sameeyeen, in ay jigjiga usoo socdaan waan garanayn. sidaa darteed waxaan rabaa mujtamaca Soomaaliyeed ee qabiil walba leh ee deegaanka ku nool inaan ugu baaqno in si duuduuba oo aan kala hadh lahayn looga hortago nimanka. dacwaddu way istaagi hadday deegaanka soo galaan. horumar wax la yidhaah waa istaagi. shirar dhici maayaan. meeshay soo galaan waa sida. qodobka labaad waa baaqaan u dirayo mas-uuliyiinta iyo xukuumadda dowlad deegaanka. waxaan rabaa inaan idhaahdo afkaarta munxarifka ah waxyaaba u gogol xaaraa jira in ay soo galaan meesha ay ku faafaan. dhowrkaa shay baan rabaa inaan tilmaamo. waxaa ka mid a midda koowaad, jahli meeshuu soo galo, mid diimeed iyo mid maadi, miduu dooniba ha noqdo. jahligu wuxuu u gogol xaaraa afkaarta munxarifka ah. ignorance paves the way for radicalization. sidaa darteed in da'yarta deegaanka kulon iyo dhalinyarada aqoontooda la kordhiyo, mid diimeed iyo mid maadi. qofku markuu aqoon leeyahay aqoonta wuu bidhaansadaa. wixii burbur u keeni kara noloshiisa adduun iyo horumarkiisa aakhiru kaga baydhaa. sidaa darteed jahligu wuxuu keenaa radicalization ama munxarifku inuu ku faafo deegaankeenana runtii jahli badan baa ka jira. midda iyada hoos in loo eego. qodobka labaad, when the level of unemployment is very high, camal la-aantu markay dhalinyarada ku badan tahay, qofkii waa dhalinyaro, camal lama hayo, cid kalea camal u yeelaysa, shaydaan baa camal u yeelay, istaxwada calayhim shaytaanu siduu ilaahay yiri. sidaa darteed deegaankeena aqlabiyadiisu waa dhalinyaro. dhalinyaro kolkaan leenahayna waxaanu ka wadnaa dadka 45 iyo waxa la midka ah ka yar ama 50 ka yar aan idhaahdo. camal la-aantu way ku badan tahay. sidaa darteed xukuumaddu inay shaqo abuur ummadda u samayso. haddii kale qof jaahila oo aqoon diimeed iyo mid maadiya aan hayn, camal la aan hayn, wuxuu u banyaalaa in afkaarta munxarifka ay saaqdo. qodobka saddexaad aan tilmaamayna waxa weeyaan lack of values. haddii akhlaaq xumadu ay deegaanka ku baahdo, qofku uusan qayim lahayn, halbeeg lahayn, miisaan uu nolosha ku dharariyo uusan lahayn, isna wuxuu u banyaalaa afkaarta munxarifka in lagu qulaamiyo. waayo akhlaaqda iyo qayimka iyo qofku markuu garanayo meeshuu ka yimid, qofku markuu leeyahay lahaansho, damqasho, lexjeclo, wataniyad iyo waxa la midka marka uu leeyahay afkaarta munxarifka uu iska caabin kara. haddii uusan lahaynse waa la qulaamin karaa. qodobka afraad, in la iska ilaaliyo falsafadaha sida khaladka loo isticmaali karo. when ideology is used and misused to mobilize the emotions of the people. mararka qaarkood waxaa dhacda hadal laga yaabo inuu yahay qadiyad jirta,
laakiin qaab kale loo suuro xumeyn karo. bilmasal waxaa ka mid a marka la yidhaahdo deegaanka tuulo walbood aadaa niman amxaara kaniisada ka dhisanaya, waa ideolojiyad ummadda lagu kiciyo. markaa tiraa magaalada Jigjiga waxaa la wareegtay amxaaro, waa falsafad ama ideolojiyad si khalad loo isticmaali karo, dhalinyaradana lagu gelin karo mashaariic aanay mahadin doonin. waxaa iyadana ka mid ah marka ummaddu aanay wada shaqaynayn ee loo qaato un askariga in uu amniga keligii mas-uul ka yahay. waxaa loo baahay ummadda in la baro marka ownership waxaan in la wada leeyahay. qodobadaas xukuumaddu waa inay wax ka qabato, oo jahliga wax ka qabato, oo camal la'aanta wax ka qabato, oo burbur akhlaaqeed hadduu jirin ay ka hortagto, oo falsafadaha sida khaladka loo isticmaali karo da'yarta looga dhigi karo mashaariic lagu hawlgeliyo ay hoos u eegi karto. waxaan rabaa marka inaan nasteexooyin u diro xukuumadda. nasteexooyinka waxaa ka mid a kow, xukuumadda keliya bayaanan odhane majlis aclaha golaha arrimaha sare islaamka, maxkamadda shareecada iyo maaragtay dhammaan mas-uuliyiinta ee howlwadeennada qaabilsan howlaha iyaga ah. waxaan rabaa inaan idhaahdo cidda garan karta afkaarta munxarifka ah ma aha askari, mana aha professor jaamacad wax ka dhiga, mana aha xildhibaan iyo wasiir iyo madaxweyne. cidda garan kartay waa qofka daaciga ah, qofka sheekha, qofka caalimka, qofka aqoonta u leh culumta islaamka. ninkaasaa garan kara afkaarta munxarifka meeshay soo gasho. sidaa darteed waxaan rabaa mas-uuliyiinta majlis aclaha, culimada deegaanka, ducaadda, nimanka akhyaarta aan wada garanaynin, iswada garanaynin, badidooda wada shaqaynay, in aan xusuusiyo ama u nasteexeeyo oon idhaahdo kow, makrofanada masaajidda aada ha loo ilaaliyo. qofka masaajidka ka hadlaya ee makrofanka qaadanaya ee ummadda wax u sheegaya, qof khayr lagu ogyahay, maamulkuna yaqaanaan, bulshaduna wanaag ku taqaano ha ahaado. haddii makrofanada masaajidda qof walba uu qaadan karo, wax alla wuxuu rabana uu ku hadli karo, kelmadda ka soo baxda afkiisa waxay saaqi kartaa masaajidka iyo xaafadaha ku hareersan. maxaa yeelay makrofanadeennu dibaddii codka u baahiyaan waynu ognahay. waxyaabaha aan ma aragtay u sheegaya waxaa ka mid ah masaajidda maamulkeedu in uu runtii dadka ku tukanaya akhlaaqiyaadkooda iyo maxaanku idhaahdaaye waxyaabaha ay ku dhex jiraan iyo waxa lamidka ah inay aqoon u leeyihin. masalan waxaan saa u lehay waxaa dhici karta in nimankaasu niman ay soo dirsadeen ay iska dhigaan jamaaca tabliiqa, waana sameeyeenoo deegaanka ay kusoo galaan. in marka jamaacaadka tabliiqa xitaa imanaya la garan karo jamaacaadkani meeshay ka yimaadeen, amiiray leeyihiin oo kulley waa taqaanaan dhaqamadooda, cidda garanaysa meeshay ka yimaadeen, qofkani muddada uu ma aragtay tabliiqa ahaa. runtii adduunka maanta lagu jiraayay adduunkii hore kale ma ah. 40 cisho tabliiqa jamaaca lasoo bixi karaa, tabliiq baad adigu moodi, laakiin waxay noqon karaan dad kale oo jamaacada khayrkan ku naqaanay walaaladeena tabliiqa culimadeena ah kusoo dhex dhuuman karo, iyagana camalkoodii suurad xumeyn kara. in marka masaajidda cidda seexan iyo cidda salaadaha cishaha kadib joogisi ku sheekaysanaysa maamulku uu ka warhayn karo. waxyaabahan u tilmaamaya waxaa ka mid ah in madaarista iyo maraakista islaamiga ee deegaanka ay dhammaantood yihiin kuwo cidda maamulaysa iyo ciddaas ma aragtay cidda ay la dabshidato laga warhayo. haddii qof ka yimid wilaayaadkan ama meelahan maamulada xarakada shabaabku ay sanadaha haysteen kuna soo ta'afuray afkaartooda, uu deegaanka intuu yimaado uu madraso furto oo caruurtii deegaanka gacanta loo geliyo oo waxaanuu barayo aan la garanayn, oo culimmadu aanay garanayn, oo ducaadu aanay garanayn, oo inuu meesha sharci ku joogo ee sharcigiisa aan la garanayn, dee jaantaa rugan bay noqon. tallaabada ka ratibmatana ma aha runtii mid la mahadin doono, horeyna waanu aragnay. waxyaabaha aan rabo inaan tilmaamo waxaa ka mid ah in dadka ganacsatada ah looga digo oo la xusuusiyo in aanay ku dhicin dabinka ah inay nimankaasu la soo xidhiidhaan oo mashaariicdooda ay fangareeyaan. waa arrimaha runtii dhibka hadda jamhuuriyadda soomaaliya khaasatan caasimadda muqdisho haysta, midaana waan ka digaynaa. waxyaabahan dadka u dardaarmina runtii waxaa ka mid ah
in la ogaado dadkan qaabkay u dhaqmaan waxaa ka mid ah magaalada jigjigoo kaloo caasimadooda ummadda soomaaliyeed iyo cid walba ay gaal iyo muslimba uu joogo inay camaliyaad ka sameeyaan kuma degdegaan laakiin waqti bay qaataan ukumahooday ku dhalaan ukumahoodaasa taracruca oo tarma cell units bay yeeshaan muddo kadib ba waxaa laga yaabaa marka in camaliyad ay meesha ka sameeyaan ilaahay baan ka magan galnay waxaan rabaa inaan kusoo gunaanado marka mujtamaca soomaaliyeed ee deegaanka deganow ummadani muddo waxay usoo halgamaysay in ay hesho istiqraar siyaasi ah barnaamij siyaasadeed degan inay amni helaan waxaan isleenahay maanta bifadli illaahi tacaala yes ummaddu meeshay u socotay weli ma gaarin laakiin alxamdu lilaahi shalay meeshaan joognay waan ka fiicanna dacwada islaamka maanta socotaa saa umaani socon xorriyadda dadka ay haystaan ilaa xad maanta shalay maanay haysanin dhaliilo fara badan oo jira oon xogaal u nahay waa jiraan laakiin khatarta hadda aan wajahaynay waxay noqon kartaa mid runtii haddaan si duuduuba umadnimo ah looga hortegin cid walba xaalufisa cid walba u xiirta mucaarad iyo muxaafid aan kala soocin kanaa oonelafa iyo kanaa bibiya aan kala soocin kanaa reer hebela iyo kanaa beesha dhexa iyo kanaa sii dhexa aan kala soocin deegaanka runtii meel weyn buu aniga iga yaalaa waxaan ahay dadkii waalidiintii deegaanka qadiyadiisa loo dilay ee ku agoomoobay ummadda inaan u nasteexin mas-uuliyiinta u nasteexiyana waa mid cidna aanan marti uga ahayn insha allahu tacaala ilaahayna aan ugu dhowaanayo ajashana ilaahay baa haya waanan dareemi karaa kelmadeydan in dad badan oo ehelo asxaab ay u arkaan mid nafteeda aan ku khatar gelinayo maadaamaan ahay nin safarro badan laakiin waxaanu leenahay ajashu waqti bay leedahay qofku meesha uu ku dhiman iyo goorta uu dhimanna ilaahay keliya og subxaanahu wa tacaala waxaan ummadda marka u dardaarmaynaa in ay amnigooda ilaashadaan ciidankooda garab istaagaan ummadooda garab istaagaan nimanka khawaarijta ah ee argagixisada ah ee jamhuuriyadda soomaaliyeed maanta qarannimadeedii saa u galay dowladnimadeedii saa u galay horumarkeeda hortaagan culimmadii ka laayay ducaadii ka laayay shacabkoodii qixiyey waxba loo qabsan laayahay salaadihii masaajidda looga cararay haldoorkii ummadda wada baabi'iyey kalifayna waxaasoo dowladaha inay waddanka yimaadaan nimankaasi duuduuba in looga hortago taasaan ilaahay weydiisanaynaa ilaahayna subxaana wa tacaala meel walban joogna hanagu ammaansado hada wallahu aclam wasali allahuma calaa sayidina maxamed wajazakum allahu khayr assalaamu calaykum waraxmat ullahi wabarakaatuh